Ku soo dhawow saaxadda editing-ka. Si aad u hesho views badan iyo content, waxaad u baahan tahay inaad iska saxdo arrimahan. Haddii aad rabto inaad sameyso thumbnail qurux badan oo tayo sare leh muuqaalkaaga u soo jiidaya daawasho badan, waa inaad raacdaa tallaabooyinkan soo socda. Qodobka koowaad, isticmaal sawir tayo sare leh. Isticmaal sawir dhammaystiran oo aan ahayn mid qas badan ama caajis ah. Haddii aad sawir qaadanayso, hubi iftiinka sawirka iyo xagalka si saxda ah loo dooranayo. Qodobka labaad, xulo midabyo iftiimaya. Midabyo xooggan sida casaan, jaalle, buluug, cagaar iyo waxyaabo kale ama kalaro kale oo daawadayaashaada indhahooda soo jiidanaya. Ka fogow midabyo isku milmay oo adkaanayso in la akhriyo ama la fahmo. Qodobka saddexaad, adeegso cinwaan weyn oo la akhrin karo. U qor ereyo yar oo si fudud loo fahmi karo. Isticmaal fonts cad oo si fiican u muuqda, iskuna day inaad geliso outline ama shadow si uu u soo baxo. Qodobka afraad, ku dar weji dareen leh. Weji dareen leh oo ka turjumaya farxad, murugo, yaab wuxuu kor u qaadayaa xiisaha thumbnail-kaaga. Haddii thumbnail-kaagu uu yahay gaming, ku dar astaamo thumbnail-kaaga muujinaya ama qurux u yeelaya. Qodobka labaad waa inaad ka hadasho niche. Niche waxaan ula jeedaa hal qodob inaad diiradda saarto. Waxaan ka hadli doonaa faa'iidada uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay. Waxaana ku horumarin doonaa faa'iidada uu leeyahay. Waxaad dhisaysaa dad daacad ku ah si joogta u daawanaya muuqaaladaada. YouTube algorithm-ku wuxuu kuu soo bandhigayaa dad badan oo daneynaya qodobkaaga. Wuxuu kaa caawinayaa inaad si dhaqso leh caan ku noqoto maadaama aad ka hadlayso hal niche. Waxaad ka samayn kartaa lacag fiican haddii aad qorsheynayso inaad YouTube lacag ka samayso. Maxaa yeelay xayeysiisyada waxay bartilmaameedsanayaan niche-kaaga. Wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tijaabiso muuqaalo kala duwan oo aad aragto wax shaqaynayo. Haddii aad ku guuldaraysato hal nooc oo content ah, waxaad dhisi kartaa mid kale. Dhibaatooyinka uu leeyahay inaad ka hadasho hal niche waxay noqon kartaa caajis haddii aad doonayso inaad samayso noocyo kala duwan oo content ah. Haddii dadka xiisahooda isbedelo, waxay adkaanaysaa inaad la qabsato. Daawadayaashaadu way ku wareeri doonaan haddii aad soo basigareynayso muuqaalo kala duwan. YouTube algorithm-ku wuxuu si fiican u dhiirigeliyaa kanaalada ka hadlaya hal niche. Waxay noqon kartaa mid waqti dheer qaata inaad dhisto content daacad ku ah. Editing-ku waa furaha in muuqaalkaagu uu noqdo mid qurux badan, xiiso leh oo xirfad sare leh. Halkan waxaan kuugu hayaa 7 qodob oo ay qasab tahay inaad fahanto haddii aad tahay muuqaal sameeye. Qodobka ugu dambeeya waa midka ugu muhiimsan. Qodobka koowaad, muuqaal nadiif ah oo tayo sare leh. Editing-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad meesha ka saarto khaladaadka, hadalka badan aan loo baahnayn iyo waxyaabo aan muhiimka ahayn. Waxaad kor u qaadaysaa tayada adoo hagaajinaya midabka, color grading-ka iyo sharpness-ka. Qodobka labaad, isku xirka kilibyada. Smooth transition wuxuu muuqaalka ka dhigayaa mid fudud oo la daawan karo. Isticmaal transition fudud halkii aad ka adeegsan lahayd transition aad u badan. Qodobka saddexaad, text iyo graphics. Text-ka muhiimka wuxuu ka caawiyaa daawadayaashaada inay si fudud u fahmaan waxa dhacaya. Isticmaal subtitles, pop-up text iyo animated titles si aad u kordhiso xiisaha muuqaalkaaga. Qodobka afraad, cod qurux leh iyo sound effects. Editing-ka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hagaajiso codka, aad kor u qaaddo ama aad yareyso meelaha ay laga maarmaanka tahay. Ku dar sound effects si aad u abuurto jawi xiiso leh. Qodobka shanaad, music background. Background music waxay kor u qaadaysaa jawiga muuqaalkaaga, laakiin waa inaad isticmaashaa music background oo free ah, aan lahayn wax copyright ah. Qodobka lixaad, B-roll and zoom effect. B-roll waa clips dheeraad ah oo la gelinayo si loo kordhiyo muuqaalka quruxdiisa. Zoom in iyo zoom out waxay ka caawinayaan inaad muujiso meelaha muhiimka ah. Qodobka toddobaad, outro and call to action. Editing-ka quruxda badan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhammaadka ku darto subscribe button, next video iyo fariin dhiirigelinaysa daawadayaashaada. Haddii aad halkan ila soo gaartay oo aad weli nagu soo biirin, fadlan nagu soo biir channel-kan, subscribe saar, muuqaalkana like garee, waa dhiirigelin ayay noo tahay.